أنا عاشق ما قانو عاشقنا يمقلل waxaan rabaa marka inaan kalimaad cafawi ah culimada garabkayga fadhida aan u dhiibo ee bal dardaarankii caashaqa iyo jacaylka sidii loo daadihin lahaa isla gacmo qabsan lahaa lagu sii wada hayaami lahaa waxyada la isugu dhiibi lahaa shakhsi ciidan waxaan ka maqlay isagoo mid ka sheekeynaya qisada oo inta u bax u geeyay maalin ay afka kaga jiida u wixii qodaxna afka dilaacisay marka waxaan leeyahay culimada maanta inay bal qisaska jacaylka ka soo maray ama taariikh ama su'aalaha uga yimid ama waxay goobjoog u ahaayeen qisooyin khawaatira wax naga siiyaan sidoo kalena dardaarankoodii caashaqa saan u daadihin lahayn ina siiyaan lana dardaarmaan cusaabta sheekh ragga halkan wada fadhiya cirada qaarkood le waa cusaab aniga caashiq ma qaano caashiqna ima gelin marka nin la yidhaahdo rag baa hawsha ku faradheer oo nin la yidhaahdo dalxa iyo saciid raaga iyo raggeedii meesha ma joogaan marka markii la gaadho uun hal iswacdiyo hal iswaaniyo waa maxamed iyo naayib ka noqonay waa loo joogaa anigu markii uun baashu gaadho hal iswacdiyo mikrofoonka la igu soo celiyo laakiin inta ka horeysa barnaamijka waa la iga fiicay assalaamu calaykum waraxmatullahi مكرمك إن شاء الله تعالى وحنودي بقى شيخ يوسف بإذن الله تعالى مديقا كوسي وضعنا حكينا بالصومالي إن شاء الله راح تفهم عنا كنا نتكلم عن المحبة والحب إلى غير ذلك كذا كلمات شو وانبع لا تعرف هذه الكلمة حقيقة يا إخوتي هذه الجامعة الطيبة التي يعني تلون فيها كثير من الأمور من الطيب والخلق والرفعة حقيقة وفي هذا المكان الطيب لا يسعني إلا أن أقول جزاكم الله خيرا جميعا وجزا الله الشيخ عبد الرحمن الذي كان سببا في اجتماعنا والإخوة الأطايب والعروسين نسأل الله أن يجمع بينهم على كل محبة وخير لكن أنا نصيحتي أن تزوجوا هذا قبل كل شيء يعني الله يسعى عليك جزاه الله خير الشيخ يوسف كلمتي سوى سنيد waxaan ugu gudbaynaa sheekh Cabdalla Xambali sheekh Cabdalla Xambali caashaqa horta uu ka soo horjeedaa aan ka soo hormaray wuxuu yaqaanay waagii idinkii kurkuroolaha wax la isku adeegi jiray anigu dhagtan ka maqlo kurkuroolaha asan ka bartay idin asagan ka bartay af Soomaaliga intiisa badan asan ka bartay ducooyinka ka bartay waxa kamid ah rush iyo rash Allah ka dhigay rahmarooda ku istaagay asan ka xifdiyay ma aqooni waxa soo dhan bal xogaa sheekh Xambali sheekh Cabdalla nooga yar tanaasulo bal insha Allah xaqeena u soo yar janjeero maanta bal بسم الله الرحمن الرحيم عروس لبدا عروس هي حفلة بركيسن يا مقام كان قيمها بدن صحبة علماء ذني يا أجل ذني رنتي إله بنقم علينا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أروسك يا روسدنا قري جوذا كو قري هروين ولا هرصد الله كديجو أولاد صالحين الله سبحانه وتعالى دحضها كدقو الله يسبرك يو أقون توضي مسكح توضي مان كوضي حوله هذا يو وحول بالله يسبرك يو رنتي أمسية مباركة ويا مقلب رنتي عادو قيمة بدن وعن شعلان لها إنكستو مقام كويه مقام وفرح يو لكفتمي كرو لكن ما دام علماء إننا لتشوغانا inaynu dardaarano dhaxalgala oo ah maqaam kasta ama maqaam kasta maqaal buu leeyahay inaynu kaga faa'iideysano waan jeclaan lahaa oo iyaga aan hadalka u dayno insha Allah barakallahu fi amma jacaylka horta jacayl cidna ma diidana waana nadariya iyo shucuur isku maaratay waafaqsan yahay gaal iyo muslim caruur iyo ciyaal caamiya wax garad wala isku raacsan yahay jacaylka aan buu ninba si u cabiraa ninna waxa weeye ilxidhku la galaa ninna waxa weeye afku rinji soo marsada meelahana waa ka sheegaa marka jacaylka anigu waxaan idhi midka qarsoon ee lafta iyo ludda ah wanaagsan midka xididada ka soo go'ay inagu aynu ku nimid ayaa wanaagsan midka reer magaalka oo ay isugu kaaya jirto waxa weeye waa un afka baarkiisa hoostana waa isboqnogoyn ilaahay labadeena caruus iyo innagaba haynaga badbaadiyo amiin dhah ducaa waxa ugu wanaagsantii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam sooma nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu duceeyay ducaa khaas uu duceeyay qoyska
ninkii naagta isqaba رحم الله بيلا رحم الله رجلا قام من الليل هبينكي كعي فأيقظ امرأته حاسكي الزوجة سيكعي قيام الليل وكعيوه فإن أبت هدي ديده الفراش يسكن رجسه نضح في وجهها الماء بي وجهك كسيلا ورحم الله امرأة يذن الله نحرسته قامت من الليل هبينكي كعي فأيقظت زوجها زوج كذا كعسي ورددك كعسي للقيام فإن أبى هدي ديده اسكن به فراشك نضحت في وجهها الماء بي وجهك كسيلا وبيها وجهك اللي سيري بمعنى هرددا اللي اسكك عينيا بيها هردوك وفراشك ويمد هردوك ومتهلو هالكا محي دليلو تاي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو تحت سقف غرفة النوم قريقا هردديسا سرير تدوش هذا كو سارا وإسكا سوى قبسوي نكا ناقل هين إسكا الدعاء اسمه سوى قلعي سوما أو كما قال أن عاشق هين من باب العشق هذا فالعشق المبارك والحب المبارك حب قاسواي وخير قال اسكو كالميستو ودعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما دعاء وإما إنشاء يوم نبي إخباره شيء ين إلهي بونا حريص طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.